madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa soo gaaray wadanka Djibouti isaga iyo wafdigu hogaaminayay markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee wadanka Djibouti ayaa waxa garoonka ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha wadanka Djibouti sidoo kale safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Djibouti Ambassador Abdifataax Saciid Axmed ayaa isaguna kamid ahaa wafdigii ku soo dhaweysay markii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu soo gaaray wadanka Djibouti intaasi kadib madaxweynaha iyo wafdigii hogaaminayay ayaa waxa loo galbiyay hotelka Kambeski socdaalkan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ku yimid wadanka Djibouti ayaa wuxuu ku saabsanaa sidii loo sii anbaqaadi lahaa wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay oo maanta ka furmay wadanka Djibouti waxaana wada hadaladani goobjoog ka ahaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa khudbad qiimo iyo qaayale oo ku saabsan taariikhda iyo halgankii dheeraa ee loo soo maray xornimada jamhuuriyadda Somaliland ka horjeediyay madaxdii ku sugnayd goobtaasi uu ka dhacay shirka u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya to self determination and independence. The case for Somaliland independence is not unique. This fact is also acknowledged by the African Union mission to Somaliland in 2005 that concluded the situation was sufficiently unique and self-justified in African political history, that the case should not be linked to the notion of Pandora's box. It recommended that the African Union should find a special method of dealing with this outstanding case. Mohamed Jamac Wale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.